Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Conversation waa mar kale iyo cashiradeenii inoo socday. Qolayaal ku soo dhawaada fadlan waxyar kale aad u yar kala casharada mashquul awgis. Insha Allah taala maanta waxaan hayaa cashir conversation oo xiiso badan dhex maraya macallin iyo ardaygiisa. Dhageysi wacan. fadlan intaan ka bixin subscribe dhe like to nostar no share gara insha Allah taala. Conversation. Ahmad, teacher, may I come in please? Teacher, where have you come from? Ahmad, I have come from home. Why have you been late? Teacher, excuse me, I was helping my parent. What were you doing for your parent? I was making breakfast. Where were you yesterday? You did not come to school. Yesterday I was sick, so I did not come to school. Did you go to a doctor? No, I did not go to a doctor. So you are telling me lie, isn't it so? No, I don't tell you lie. It is true. Okay, go and call your parent for me. Teacher, excuse me. Please forgive me today. I will not do it again. Okay, come in. Thank you, my teacher. Teacher, there is no space here. Where do I sit? Where is your position? My position is somewhere here. Okay, sit here. Thank you, my teacher. الصنوق ونحسن aan dib u bilowno marcashiga insha Allah taala. dhageysi wacan. waxaa halkan ku daadinaya Axmed iyo macalinkiisa. maxaa kala qabsaday waa cashir aad u xiiso badan insha Allah taala. dhageysi wacan, dhegta si fiican ugu fur. halka aan ku taabanay aan ku tilmaamay insha Allah la raacisha si aad u fahanto ereyada macnahooda insha Allah taala. Axmed, teacher, macalin, may I come in? ma soo gala please fadlan. May maana miyaan, I aniga come imaada in gudaha weyn please fadlan. May I come in please? fadlan miyaan soo galaa. mayda markay hore marto waa erey su'aaleed. si aad su'aal u weydiisa miyaan saa yeela marka leedahay waxaa leedahay may I come in? ma soo galaa please fadlan. May I come in? ma soo galaa. May I go? ma baxaa. May I something like marka leedahay yaad mayda qaadanaysaa. So may I come in please? fadlan ma soo galaa buu leeyahay. Teacher, macalinka ayaa dhahaya where xagee have you come from aad ka imaaday. have you adiga come from aad ka imaaday. oo Axmed ayaa yidhi I have come waxaan ka imaaday from home xagga gurigaan ka imaaday. halkan from waxay ku tusinaysaa dhanka aad ka soo jeedo ama aad ka imaaday macnaha. I have come from waxaan ka imid home guriga ayaan ka imid ama cidi. Why teacher, tida macalinka u taagan tahay. Why sabab have you adiga been aad u ahayd late mid soo daa. Why have you been late? maxaa soo daaday. Why have you been late? maxaa usoo baaday usoo daahday. waayahay. Teacher ayuu yidhi ardayga. Teacher, macalin, excuse me, iga raalli ahow. I was helping. aniga was waxaan ahaa helping mid caawinaya my parent waalidkayga. I was helping my parent. waalidkayga ayaan caawinayay. What maxaa parent halkan waa hal waalid macnaha mufrad waay. waxay ku tusinaysaa marka hooyadoo kale camal ninkaas caawinayay ama gabadhaasi ama ninkaas aan dhaho Axmed weeyaan. What were you doing? maxaad suubinaysay for your parent? waalidka maxaad u sameynaysay. I was making breakfast. quraac ayaan u sameynaya. aniga was waxaan ahaa making mid sameynaya breakfast quraac. maybe hooyada ayaa waxay lahayn gabar caawisa sidaas awgeed Axmed waaba nin wuxuu ahaaba dabcan canjeerada dubaya waa. I was making breakfast. quraac ayaan sameynayay. layaab cajiib. T oo macalinka ayaa yidhi where xagee waa you adiga aad jirtay. waa aad ahayd you adiga yesterday shala. anaa waadaas ahaasha wey. Where were you yesterday? xagee jirtay shala. Where were you yesterday? You adiga did not come ma aadan imaanin to school iskuulke. You did not come to school. School maad imaanin. Where were you? xagee jirtay wariya. ayaa soo boday wuxuu yidhi yesterday shala. yesterday shala I was sick waan xanuunsanaa. aniga was waxaan ahaa sick mid xanuunsan. soo saa darteed I did not come ma aan imaan to school iskuulka. I did not come to school. iskuulka ma aan imaan.
did you go to a doctor dhakhtar miyaad aaday did you adiga go miyaad aaday to a doctor dhakhtar miyaad aaday buu ku yiri macallinkii ardayga wuxuu leeyahay no maya I did not ma aanan go aadin to a doctor dhakhtar ma aadin no I did not go to a doctor dhakhtar ma aanan aadin teacher ayaa yiri soo saas darteed you are telling waxaad u sheegaysaa me aniga lie been leanna qof xanuunsaday wuxuu aadi lahaa dhakhtarku waxaan leeyahay marka soo saas darteed you are telling me waxaad ii sheegaysaa telling sheegidu lie been lie lie been isn't it so miyayna saas ahayn isn't it so you are telling me lie been ba ii sheegaysaa isn't it so miyayna saas ahayn no maya ayuu yiri I don't tell you kuma sheegaya don't maxaa laga wadaa do not oo lasoo gaabi weeyaan I don't tell you kuma sheegaya lie been kuma sheegaya it is true waa run it ayadoo arrintan ku sheegaya is waxa weeye true mid run weeyaan I don't tell you lie been kuma sheegaya it's true waa run tii oo macallinka ayaa yiri okay hagaag go back and call u yeer go and call orod u soo yeer your parent waalidka for me aniga u soo yeer go and call your parent for me waalidka igu soo yeer teacher ayuu yiri ardayga macallin excuse me iga raalli ahow please fadlan forgive me iska kii cafi today maanta forgive cafis weeyaan teacher excuse me macallin iga raalli ahow please fadlan forgive me iska kii cafi today maanta I will not do ma samayn doono will doona waa mustaqbalka halkaas aan ka daro waxaa cafan ka maqan ayaa halkaas kaaga maqan aan kugu daro I will not do it I will not do it ma samayn doona again mar labaad I will not do it yeah I mean that means I will not be late before I mean like before sida hore oo kale ma soo daahay weeyaan I will not do it again mar labaad kuma noqonayo arrintaas okay hagaag ayuu yiri macallinkii come in soo gal oo iska cafiyay come in soo gal come in soo galid thank you waa mahadsantahay my teacher macallinkayga thank you waad mahadsantahay my teacher macallinkayga axmed markii uu fasalka galay ayaa wuxuu arkay meel uu fariisan waayo ama uu fariista ayuu waayay wuxuu yiri dib uu macallinka usoo noqday wuxuu leeyahay teacher macallin there is no malaha space meel space oo bannaan ee la fariista malaha hiya halkan where xagee do I sit and fariista there is no space here halkan space ma lahane mana boos la fariista mana bannaan ma jire where do I sit inta fariista space mana waa meesha oo bannaan weeye where xagee is uu yahay your position booskaaga markaa wadi you waa waxaaga wey position waa booska marka hore fadhid aw where's your position aw position kaadi macallinka waa yiri wuxuu yiri my position booskayga is somewhere waa meel un hiya halkan مثلا somewhere waxaa ismaalaysaa markii aadan meeshii xoogaa shaki kaaga jiro somewhere here meelahan somewhere here meelahan my position booskayga is somewhere here somewhere meel un oo hiya halkan meelahan weeyaan okay hagaag sit here inta fariiso marka sit fariiso hiya halkan ayuu macallinkii dib axmed wuxuu leeyahay thank you waa mahadsantahay my teacher macallinkayga aad baad u mahadsantahay walaalayaal halkan marka come in haddaad dhahdo waxaa weeyaan come in soo gelid weeyaan marka late why have you been late maxaa usoo dahday been mana ahayd weeyaan late mid dahay been late maxaa usoo dahday late marka waa daahid weeyaan breakfast maxaa waaye waa quraac I was making breakfast quraac baan suubinayay making mana suubinayay samaynayay making I was making breakfast quraac ayaan suubinayay where were you waa mana aad ahayd where were you yesterday shalay xagee jirtay weeyaan where were you yesterday shalay intee jirtay saas u hadlaysaa insha Allah tacaala wuxuu leeyahay yesterday I was sick waa xanuunsanaa I did not come to school ma imaanin did you go to a doctor dhakhtar maad manaa did you did markaas maashaa maxay did waxay ku tusinaysaa haddii hadda maanta aan ka hadlay ama today ama wax present oo hadda jooga ka hadlayna do you go ay ahaan laakiin do baa laga dhigi lahaa do you go baa la yiraahdaa kan maxaa did baa la yiri did maxay ku tusinaysaa marka waa ficil la soo dhaaf wax tagay weeyaan shalo kale wixii dhacay marka ka hadlaysa saamiyaad yeeshay markay tahay did ayaa leedahay did you go to a doctor dhakhtar ma aaday no I did not go to a doctor dhakhtar ma aadin saas uu leeyahay marka halkan fiirso so saas darteed you are telling waxaa u sheegaysaa mi aniga lie been ayuu yiri soma isn't it so miyaynan ahayn mana saas miyaynan ahayn mana been ma sheegaysaa saas ma saas weeyaan marka
ninkan waa diiday wuxuu leeyahay no I don't tell you lie been kuma sheegaye it is true waa run ayuu leeyahay marka insha Allah tacaala parent halkan wuxuu isticmaalayaa mufrad ayuu isticmaalaya parents macnaha waalidiin bayaan laakiin hadda waxaa waaye hal waalid markaa ka hadlaysa mufrad baa ka dhigi kartaa go and call your parent for me ka waalidka ay usoo dhigi kartaa marka insha Allah tacaala forgive waa maxay cafin forgive ana cafis forgive me ya cafi I forgive you waan ku cafinaya forgive me ya cafi today maanta marka insha Allah tacaala sidaas oo la soconaysaa thank you very much indeed dhegeysi wacan